Sheekh Cabdiraxmaan oo xildhibaan ka tirsan golaha guurtida Somaliland maalinimadii shalay guddida madasha wada tashiga Somaliland dacwad ka dhana golaha guurtida Somaliland ay u gudbiyeen maxkamadda dastuuriga oo la xidhiidha muddo kordhintii ay u sameeyeen golaha wakiilada Somaliland iyagoo sheegay inuu u baneynayo qodobka afraad farqadiisa koowaad ee xeerka garsoorka Somaliland ama dastuurka inay qof kasta oo muwaadini inuu dacwad ka gudbin karo amba xeerdejinta ha ahaato amba shakhsiyaadka kaleba ha ahaatee bal dacwadda laydinka gudbiyey iyo eedaha laydin soo jeediyey maxaad ka leedahay bismillahi raxmaan raxiim waad ka dhawaajiso qofka muwaadinkii xaq uu leeyahay inuu dacwad u gudbiyo hadduu hay-adaha institutionada qaranka hadduu wax ka tabanayo taasi waxay ku xidhantahay shakhsiyan waxaa la eegayaa uun isagu kii xaqa u lahaa inuu dacwadda ka gudbiyo ma yahay mise maaha taa sharcigu saas uu odhanayaa markaa wixii maxkamadda yaalla maxkamadda ka jawaabi doonta waxaan doonayaa un inaan kolley runtii ka hadlo un dhowr qodob halkan oon uga faa'iideeyey fursaddan kow awoodda golaha guurtooda maxay tahay waa qodob waayo institutionada qaranku dee mid waliba awood gaara buu leeyahy awoodina awood kuma xadgudubto golayaasha hadday fulinta tahay iyo hadday labada baarlamaan golaha wakiilada iyo golaha guurtida tahay mid waliba waajibaad dastuuri ah oo qaranku siiyey oo awood u gaara baa jirta arrimahan laga hadlayo waa waajibaadka iyo awoodaha golahu leeyahay marka ay caddaato inaan doorasho muddaa la qabtaa doorashada muddadaa la qabanayo haddii ay muddada doorashadu ku qabsoomi weydo oo commissionku qaban kari waayo wuxuu leeyahay waan qaban kari waayo madaxweynuhu u gudbinayaa madaxweynuhu markaasuu golaha guurtida usoo gudbiyaa golaha cid la leh inuu qiimeynta iyo go-aanka gaadhista cid alla cid la lehi ma jirto totally haba yaraatee meel ay dastuurka kaga taaliyo meel ay shuruucda dalka kaga taalaana ma jirto taasi waa qodob kororsiimadu goormay timaadaaba isweydiin leh had iyo jeer waxaad moodaa in focusku soo eego uun golaha guurtida la yidhahdo golaha guurtida wax kordhiyey golaha guurtidu dalka badbaadadiisa iyo ilaalintiisunbuu u taagan yahay goorta golaha ay soo gaadhaano waa goor uu waktigii loogu talagalay dhinacuu doonaba ha ka yimaadee marka muddadii loogu talagalay inay doorasho qabsoonto ay qabsoomi weydo dalku fawdada geli maayo madaxana la isla geli maayo markaasay qasab noqotaa oo golaha ay soo gaadhaa waajibaadku uu yahay inuu golahu badbaadiyo qaranka haddii kale oo aanay taasi jirin oo doorashona la qaban waayo madaxun baa la isla geli lahaa sidii dee yooyootanku u hayseen unbay noqon lahayd taa darteed baa horta xeerkan iyo qodobkani uu u yaallaa in marka ay timaado marka golahu wax uu isagu soo jiito iyo wuxuu isagu sabab u yaho uu wado midnaba maaha taasi waa qodobka kororsiimada qiimeynta iyo marxaladaha ay marto markaynu ka hadalno golahu markay marxaladaasi timaado had iyo jeer waxaa la yidhi bini-aadanku nin baa yidhi bal murama labadaa nin halkaa wada taagan ka dhalinaya intuu dhinac xirtay buu iska dhex maro wuxuu yidhi kii xaggan taagnaa midigtuna wuxuu yidhi dhinac ninkan xiiran miyaad arkiin kii xaggan fadhiyay isagaa xiiran basoo ki tima lahaa buu golaha guurtidu marka ay arrimahaasoo kale yimaadaan waxaa laga yaabaa dabcan xisbiyadu waxa u muuqata doorasho waxa u muuqata xisbi hebel ninuu la col yahay oo la dagaalamayo laakiin marxaladaasi markay soo gaadho golaha guurtigu wuxuu qiimeeyaa oo afarta dhinacba afarta jihaba ka istaagaa marxalada lagu jiraa waa noocay noqonaysaa ma eego uun doorashadii baa qabsoon weydo commissionku farsamo ahaan waxaasuu u baahan yahay dabcan commissionku farsamuu sheegtaa wuxuu idhahdaa farsamo ahaan waxaasaan u baahanay intaasoo marxaladoodoo kale oo ku xeeran bay guurtidu qiimaysaa maxaa ka mid a waxaa ka mid a caqabadaha taagani maxay yihiin waxaa ugu horeeya oo markii hore aa ogeydeen oo diiwaangeli doorashada aynu ku kordhinay 10 bilood waxaa commission baa joogay muddo badan soo sheegay expert ahaa waxay yidhaahdeen 10 bilood baanu doonaynaa 6 qodob marka la dhameeyo ayaanu annagu u baahannahay 10 bilood waxaa ka mid ahaa inay lacagtii qaadhaan bixiyayaasha Somaliland ku taageeraya doorashada ka taageerayaan haddii 10 bilood lagu qabto heshiiskii xisbiyadu ay la galeen qaadhaan bixiyayaasha qolada qaadhaan bixiyayaasha way ka baxeen ballantaa maantana baaqiye soo saarayaan kororsiimadii hore waajibku wuxuu ahaa maalintaanu kordhino inay lacagtii Somaliland doorashada lagu qabanayay inay keenaan wala isweydiinaya ma keeneen qaadhaan bixiyayaasha la sheegay maanta Somaliland baaqa u soo saaraya miyay keeneen lacagtii ay iyagu ballan qaadeen inay keenaan maalintii waa maya
ilaa maanta way maqantay waa qodobka ugu horeeya qodobka labaad baa ka mid ah markii ay isqabsadeen qolada xisbiyada iyo golaha guurtooda wuxuu qiimeeyey marxaladaasoo komishanka qolada wadani ay tidhi kuma gelayno komishankaa joogaa doorashadaa intay joogaan sharciyada la sharciyad lagu eryaana may jirin waxay noqotay intii madaxa la isla geli lahaa ee doorashadaasi ay odhan lahaayeen ma qaban karayno in la dhaafiyo komishanka doorashooyinka oo muddadaasi dabeetana bil ka bacdi marka dominka komishanka dambe laga heshiiyo tii waxay noqotay inay keento jiitanka ilaa maanta taagnaa ee muddada lagu soo murmayey in muddadiina la galay doorashada waqtiga lagu talagalay ka soo gudub maanta aynu taagannahay golaha guurtida muxuu qiimeeyey wuxuu qiimeeyey kow komishankii cusbaa markuu yimi muran baa bilaabmay murankaasi waqti alla waqti uu xalismayena kuma jirto 10 bilood komishanka soo qaaday annagu waxaanu qiimeynay haddaanu qiimeyno oo aan ku saleynaynaa waxa ugu horeeya komishanka cusub isaga laftiisa u baahan maanta in tababar galo marka 10 bilood hore laga tagay uu komishankii hore u baahnaa waayo isagu tababar uma baahnayn inuu soo shaqeeyay baa marka 4 bilood komishankani u baahan yahay tababarka isaga la siinayo la eego ee diiwaangelinta la galiyay 6 bilood diiwaangelinta loogu talagalay dadka kaararka in la dib loo diiwaangeliyo leen dib loo furo diiwaangelinta oo gobolada 6 gobolba membil bay qaadanaysaa kuwii hore expert bay ahayn wax laga yaabaa in 15 cisho ku shaqeyn lahaayeen 6 bilood bay halkaasi qaadanaysaa qaybinta kaararka la soo sameeyay marka la soo sameeyay dib u qaybintooduna 3 bilood bay qaadanaysaa gobol waliba ugu yaraan 15 bilood 15 cisho ay qaadanaysaa taasina macnaheedu waxa weeyaan in 3 bilood ay u baahan tahay agabka doorashada lagu galayo ee la soo daabacayo marka u dambaysa la soo daabaca ugu yaraan 4 bilood kama yara inta hawshiisa lagu jira marka inta la sugeeyo waxa soo baxaysa 17 bilood oo in 17 bilood oo ay tahay kororsiimadaasi oo farsamo ahaan ay tahay waliba maxaa soo haray waqtiga 17 ka bilood marka la gaaro waxay ku beegantahay xagaa wadanku wuxuu ku jira wax xeebo badan baynu leenahay population-keenu xeebo badan yahay dadkaasi ninka musharaxiina xaq uu leeyahay in uu waqti uu dadkiisu deegaanadiisii joogo oo helo awood uma hayo maanta inuu dad ku daabulo waqtiyada goobaha xagaayada lagu noqonayana waa marxalad kale golaha guurtidu taasoo qiimeeya iyo waqtiga dadku reer guraagu uu joogo dhulkiisii deegaanadii laga codeynayay qof waliba ma yahay qof fadhiya deegaankii uu joogay ee uu xaq u lahaa inuu ka codeeyo ama codbixinta ka bixiyo ninka muwaadinka musharaxa ahina uu u helo codkiisa cidii u codeyn lahayd inay deegaanadiisii joogto marka waxaas oo dhan la sugeeyo waxay ku beegantay waqti xagaaya oo xeebahana laga maqan yahay marxaladda 17 bilood marka la sugeeyo waxaanu qiimeynay marka annagoo ka duulayna khilaafka maanta taagan ee komishanka doorashooyinkana laga hadlayo muddo lagu dhex ciyaari karo waa in la helo ugu yaraan 6 bilood ee siyaadaha waxa ku siyaadaha 6 bilood oo ugu talagalay dadka xeebaha joogaana inay dib u noqon karaan khilaafka muranka khilaafka taaganina waqti uu ku dhamaan karo waxa kale oo jira oo halkan imika aan maqlaynay qoladan madasha wada tashigu meel alla meel ay ka aasaasantahay waxa ka jirta iyadu dambi bay horta ku jiraan meel madag wax la yiraahdaa de ma jiro dastuurku xisbiyo iyo ururada la soo abaabul karaabul leeyahay waqtigii ururadana ma joogna xisbi 3 xisbi qaran baa jooga anigu waxaan is leeyahay de nimanka odayaasha wax kala oran maayo jinni boqor bay noqdeen oo dalka 3 xisbiyo qaran ee jirana inay taladooda iyo fikirkooda iyo aqligooda ku kordhiyaan mid uun bay ahayd oo hadday xitaa de laakiin markay yiraahdaan hay'adaha institutionada qaranku ma jiraan oo xisbiyadii qaranku ma jiraan oo afartayada meelaha taagan ee kolba meel ka hadla ayuunbaa wax garanaya waxaan is leeyahay waqtigii de hogaanka laga furi laayay laftoodu way taagan yihiin marka inta u dhaafin maayo iyagana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xilli baan hal su'aal weydiiyo madasha wadatashu waxay sheegtay in golihiina guurtidu dhacdeen oo muddo kordhiyeen laftigiina ku fadhiyaan oo sharci darray bay nagu tilmaameen waxa soo saartaa inuu sharci darray aridaas meel taagnayd dambe waaba dambiilayaal baa ku leeyahay waxyaabaha ay dambiga ku galayaan dambiga ku midaysanayaan baa ka mid ah institution qaran oo dhisan oo taagan oo aan si sharci iyo sifo sharci oo lagu bedelay aanu jirin inuu yiraahdo ma jiro waxa filayaa inuu dambi tahay hadii loo raacana inay dambiilayaan noqonayaan waliba xabsi ku galayaan waana dhacdo dawladdiina riyaalaba mar bay xabsiga galeen nimankan marka waqtigeedii bay gaar kalkeedii bay taagan yihiin baan u maleynayaa waqtigii ay galayeen oo waxa is leeyahay gogashoodu dahaw sax xidhal jalkooda boqolkooda way garanayaan hadday sidan u sii socdaan laakiin yaan xaq u lahayn hadday lahaan
قوليو مدو دعضي مدو كل ما صاير كلام يعني حق ولا هذا حق وماله institution شرعي أو شرعي إنه يراهدان إنكو الشرع ما هو مجرو والدنبيلي وأنا هيدها قرن كان يد واجب كتاعي إنه يجو طبق لانه أي واجبات كودا كقولتنا أنا وكهذا لماينه أنا يجا وحلا لو يدين مايو أقونسنا لو يدين مايو يجا غير كوتونا هو institution شرع لكن دنبيجا ويسقوا قلاء وهذه قرن كأوليه هو دنبي وحلا جرب هذه كل شغلة لها إنه تلعبك قاضي مؤدنك حق بقول هدي إن عبد الرحمن ودمي كقلم لكن institution قرن السقوا عن حسبنا هين مال كلام تاجنا إنه لا institution قرن بعد دمي كقلي مال الله مال الشرع يجي الله قرن مين وطاي قلا قرتي waxa lagu yaqaanay in ay doorka nabadda ka qayb qaataan iyo dhexdhexaadinta muran baa ka taagnaa dalka mudooyinkii ugu dambeeyay xisbiyaduna way murmayeen waxaa jiray kooxo kale iyagu dhexdhexaadin ka dhexwaday xisbiyada qaranka iyo xukuumadda Soomaaliland iyo cid kasta oo muranku ka dhaxeeyo laakiin idinka doorkiini lama hayo maxaad u gabteen doorkiini su'aal wanaagsan weeyaan runtii horta waan soo dhaweynaa cid kasta oo dhexdhexaadin iyo sulux waa waxaynu inagu leenahay wax walibana nin baa la yidhi war adigu markay balaaya dhacdo laba ninoo garta odayaalahoo waaweynaayoodee wax lahaaba markay gar galayeen ayaa markay sidaa dhibtu dhacdo dabeetana farasiisa heesaysan jiro oo meeshuu tegi jiray iyadoo xasaasiyadda iyo ficiltanka iyo xaaladdu cirkan barayso dabeetana cidina ma dhegaysato waxaa jira oo waayaara golahan uu yahay marxalado dadku aanay waxba dhagaysan iyo marxalado dhaguhu furan yihiin oo loo baahan yahay waqtigii in la wada hadlo ama la isu soo jeedo dadku ay taaganta waxaan waayaara ugu nahay bilowga dacwadu marka dadku xafiiltamaya ugu horeysa inaanay dadka indhahoogu xisbiyadu ama dadka isayaa inta badan uma soo jeedaan in sulx iyo in la isu soo dhaweeyo laakiin markay soo biyo dhacaan xaaladdu saaxigeeda ku soo noqoto wixii sharci laba qadow ma kala saarina waxna waa nidaam sharci oo khilaaf sharci nidaam sharci uu maraa midna waa midkii aynu ku caanamaalay marka waxaan isleeyahay marxaladiisii wali idinka ka hordegdegayeen annaga barxaladayadii aynu soo gali jirnay mi gaadhino laba dhinac labadaba waanu ka eegnaa mar sharci baanu u eegnaa marna sulxiyo wixii la isu soo dhaweyn kara ee ragga kala jeeda la isugu keeni karaan u eegnaa marka waxaan isleeyahay malaa waa early waqtiga halkan waanu ugu talagalay in waqtiga muddada gudaheeda la halkani uu imanaya مشكلتنا ما تشردي وحنبل كلا تشيدنا يا إن شاء الله بسم الله كريم نقول بكل ما نسخ خلاف كنا وصواف كويتونا